بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan inkaga soo gudbinaynaa casharkiina toddobaad ee ku saabsanaa fahamka siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam. casharkii uga dambeeyey waxaan kaga soo hadalnay bilowgii waxyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam, sidii uu ugu soo bilowday ee ilaahay diintan ugu soo dejiyey, iyo malaku jibriil markii uu qabtay oo yiri aqri, nebiguna uu 3 jeer yiri anigu waxba ma aqriyo. halkaas ayay noo maraysay. waxaan kaloo ka soo hadalnay in oo waxbarashadu ay islaamka muhim u tahay, maadaama aqris iyo qalin iyo barasho ilaahay uu ku bilaabay qur-aankii ugu horeeyay ee soo degay. intaas kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam markii malaku jibriil uu soo daayay ee uu yiri iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram, markii ilaahay uu aayadahaas ku soo dejiyey, nebigu calayhi salaatu wasalaam kabacdi waa uu tegey, wuxuu aaday gurigiisii, xaaskiisii khadiijo ayuu u noqday, asagoo aada nebigu u cabsanayo maadaama malagii uu xoog u qabtay, arrin ku cusubna ay ku bilaabatay, ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gurigiisi u laabtay. markii gurigiisii uu tegay oo khadiijo u tagana, nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam zammiluunii zammiluunii zammiluunii, war iduuduuba oo mara ihuwiya, mara hala ihuwiyo. oo qofku markii uu naxsan yahay, haddii uu maro iyo wax hoos galo, naxdintii iyo argagixii ayaa ka degaya. marka wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam hala iduuduubo iyo mara hala ihuwiyo. waa meesha ingiliishka lagu yiraahdo cover me cover me cover me oo kale, hala ihuwiyo wax, ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaasna khadiijo nebiga waxbay huwisay calayhi salaatu wasalaam. wuxuuna nebigu yiri oo u sheegay markii uu xasilay, laqad khashiitu calaa nafsii, waxaan u cabsaday nafteyda ayaan u cabsaday, oo arrin culus igu cusub iyo dhacdo aan arki jirin ayaan la kulma, ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markii nebigu uu yihi nafteyda ayaan u cabsaday, khadiijo oo nebiga xaaskiisiiya waxay taqaanaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam shaqadii uu qaba jiray, waxa uu yahay, waxa uu mudan yahay. ruuxa sidaasoo kale ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kala kulmi karo xaggiisa ayay khadiijo fahantay. marka khadiijo waxay rabtaa inay nebiga fahansiida calayhi salaatu wasalaam asagoo kale inuusan dhibaato arkayn. markii uu nebigu u sheegay ciladii iyo wixii uu arkay, ayay khadiija waxay tihi radia allaahu canha, kalla wallaahi maa yukhziika allaahu abada. waxay tihi warkaas iska dhaafay tiri nebi moxamed. nebigu markaas nebigi ma ahayn calayhi salaatu wasalaam, nebinimadka markaasuu kusoo bilowdo, macnaha khadiija ma oga, laakiin waxay tiri iska daayay tiri, haba ka cabsan arrintaas, ilaahay baan ku dhaartaye ilaahay kuma hoojinayay tiri, haba ka baqin in oo dhibaato ku soo gaarta adiga. maxaa yeelay calaamaadka aad samaysid iyo waxyaalaha aad qabatid iyo shaqadaada qofka qabtaahi ma ahan qof dhibaataba soo gaartaba, ilaahay xaggiisa waa looga gargaaraa kaas. maxaa yeelay innaka latasilu raxim wataxmilu lkal wataksibu lmacduum wataqri dayf watuciinu calaa nawaa'ib alxaq. waxay tiri adigu calaamaadka iyo howlaha aad qabato ayaan kuu sheegayaa. kow, adigu waxaad xiriirisaa qaraabada. qof haddii uu qaraabadiisa xiriiriyana ilaahay ma hoojiyo. waa wax iska cad oo la og yahay, kutubihii hore ku cad, kutubaha dambe ku cad, diinta nebi moxamed ku cad. nebi kastahina uu sheegay qof qaraabada xiriiriya ilaahay ma hoojiyo. taasaa ka cabsanay tir. hadda nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam qofka qaraabo xiriiriska
waxa uu faa'iido gaaraya waa uu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam. qofka qaraabo goyska dhibaatada u dambeysana waa uu noo sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam. xadiis saxiix ayuu nabigu wuxuu ku yidhi man sarahu an yubsata lahu fii risqih wa yunsa'a lahu fii cumrih falyasil raximah. qofkii ay farax gelinayso in risqigiisa loo fidiyo, in loo waasiciyo, in loo ballaariyo, cumrigiisana loo dibdhigoo loo dheereeyo, ilaahay u barakeeyo, falyasil raximah, qaraabadiisa ha xiriiriyo. qaraabadiisa ha xiriiriyo qofkii intaas raba. haddii qaraabada uu qofku xiriiriyo intaas waa uu gaarayaa shaki la-aan. maxaa yeele waa hadalkii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo asaadiq lmasduuqa. xadiid kale ee saxiixu lbukhaariya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu makhluuqa abuuray ee abuurkiisa uu dhammeeyey ayaa qaraabanimadkii ilaahay la hadashay. markaas ayay waxay qaraabanimadkii tiri hada maqaamu lcaa'idi minka bilqatiica, hada maqaamu lcaa'idi min alqatiica. ilaahayow halkaani waa ciddii ku magan galaysay adiga oo goyn la gooyo kaa magan galaysay meeshii ay taagneed wey. qaraabanimadka ayaa iska hadlaysa oo le ilaahayow meeshan waxaan u taaganahay goyn la igooyo ayaan kaa magan galaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alaa tardayna an asila man wasalak wa aqطaca man qaطacak. wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala miyaadan raalli ku ahayn inaan xiriiriyo qofkii adiga ku xiriiriya, qaraabanimadka qofkii xiriiriya inaan xiriiriyo miyaadan raalli ku ahayn, qofkii ku gooyana inaan gooyo miyaadan raalli ku ahayn. markaasay tiri nacam, waa raalliyan ku ah. markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yihi fadaaki, kaas waad leedahay. qofka adiga ku gooya inaan gooyo, qofkii ku xiriiriyana aan xiriiriyo, taas aniga kaa ballan qaado. allahu akbar. hadda qofka ilaahay xiriiriyey, xiriirka la xiriiriyey intuu la egi ma xiriir caadiyaha? qofka ilaahay gooyeyse goynta la gooyey intay la egta? ma goyn caadiyaha? intaas xadiidkaas abu hureyra markii uu wariyey ayuu wuxuu yihi haddii aad rabtiin inaad fahantaan arintaas xaqiiqanimadkeeda faqra'uu qowlahu tacaalى fahal casaytum in tawalaytum an tufsiduu fi lard watuqaطicuu arxaamakum. war ma mudan tihiinuu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii aad jeesataan oo iimaanka iyo xaqa iyo islaamka aad ka jeesataan inaad arlada fasahaadisaan miyaad mudantihiin? macnaha saasaad samaynaysaan. haddii aad iimaanka ka jeesataan arladaad fasahaadinaysaan, dhulka ilaahay fasahaadinaysaan. qaraabadana waa aad goynaysaanoo waxaad mudantihiin inaad qaraabada goysaano. maxaa yeeley qaraabada in la xiriiriyo iyo dhaqanka wanaagsan diinta ayaana amraysa. ayadiina haddii uusan qofku diin lahayn oo iimaankii ka jeesto wuu goynayaa. marka bal aayaddaas akhriyuu yihi abu hureyra. marka qaraabada qofku hadduu xiriiriyo waa meel weyn ayuu ilaahay agtiisa ka gaaraya, maqaam fiicanoo ilahay agtiisa gaaraya. khadiija marka waxay tihi ha cabsan nebi moxamedow inaka la tasilu raxm. qaraabadaad ba xiriirisaa, qof qaraaba xiriirisana ilaahay dhib ma gaarsiiyo. kow wa taxmilu lkal, waxaad kalood qaadaa ood xambaartaa ood gacan siisaa qofka leeraha alkal, qofkii cusla. alkal waxaa leeraha qofka dad kala dul saaran oo maaragtay ay nafaqeeyaan oo aan waxba awoodin, waxna aan qabsan karin, kaas ayaa la ihahda. dadkaas ayaad gacan siisaa rasuulka ilaahay ow. dadkaasaad u kaalmaysaa, dadkaasaad caawisaa. dadkaas qofkii caawiyana ilaahay waa caawinaya. midda saddexaad wa taksibu lmacduum, waxaad wax siisaa oo u kasabtaa qofka wax waayey oo aan waxba haysan, kaasna waxbaad u kasabtaa. ama waxaa kaloo leeraha waxaad kasabtaa hoo shaqaysaa wixii la waayey. wa taqri dayf, martidana waad soortaa. dadka martidaana waa marti qaada. maxaa yeelay in martida la maamuuso oo la marti qaadaahi waa amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam.
man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfah. qofkii ilaahay rumaynaya, ilaahay qofkii rumeeyey iyo maalinka aakhiro martigiisa ha karaameeyo yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka taasina waxa weeye qodob kale oo muhiima oo martida ayaad soortaa. wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq, waxaad kaloo u kaalmaysaa oo aad garab istaagtaa wixii xaqahoo soo kordha oo yimaada. ciddii xaq wada, ciddii wax wanaagsan la timaada waad gacan siisaa. marka haba ka baqin intaasoo sifo adigoo leh in ilaahay ku hoojiyo ha ka cabsanay tir. khadiija markay nabiga calayhi salaatu wasalaam saas u qancisay oo qalbigiisa dejisay, waa sida xaas wanaagsan lagu yaqaan. haddii ninkeeda culays uu soo waajaho, dhibaato ay soo waajahdo, culays uu ku yimaado, xaaska wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa inay la qaybsato oo ay tira isdeji, waxa weeye waxaan dhib ma leh, saas iyo saasay noqonaysaa, khayr bay ku dhammaanaysaa, inay sabar siiso qalbigiisa ay dejiso. laakiin xaaska xuni markaasay problem kale iyo dhibaato kale iyo shido kale kusii furaysaa. intaas ka bacdi khadiija waxay doontay in arintan qof khabiir ku ah oo aqoon u leh ee ka hadla loo tago. maxaa yeele khadiija waxay ogaatay arintaani inay tahay arin dhacdo cusub oo diin ah. marka diimihii hore iyo kitaabihii hore dadkii wax ka yaqaanay ayay u baahatay khadiija inay information iyo warbixin ka soo hesho. khadiija nabiga waa ay kaxaysay calayhi salaatu wasalaam, waa ay israaceen. waxay u tageen ninkii la dhihi jiray Waraqa oo khadiijo ay ilmo adeerka ahaayeen. Waraqa wuxuu ahaa nin oday ah oo caalim ku ahaa kutubihii hore, aada u yaqaanay, markaasna arag beelay, kitaabihii horena aada u yaqaano wax ka qori jiray. markay u tagtay khadiijo waxay tiri ina adeerkeeyow, bal wiilkan Maxamed la yiraahdo ood adeerka u tahay, bal dhageyso warkiisa, bal warso. Waraqa wuxuu yiri ii sheeg maxaad la kulantay. marka ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u tiri oo yiri waxaan la kulmay dhacdadaas, sidaas ayaan arkay. wuu u sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam. markii uu u sheegay malagii iyo waxyigii sidii loogu soo dejiyey, markii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay Waraqa muxuu yiri waa u fahmay, ilaa kitaabii hore u yaqaanaa, malaku jibriil u yaqaanaa, sidii uu ambiyada ugu imaan jiray ayuu yaqaanaa. wuxuu yiri Waraqa, haada naamuus kani waxa weeye waa khayr wadihi, waa malagii khayrka wadi jiray ee waxyiga keeni jiray, alladii anzala allaahu ama nazala allaahu calaa muusa, ilaahay uu nabi muuse ku soo dejiyey oo ilaahay nabi muuse u keenay ee waxyiga la yimid. kan ha ka cabsan ya malag wey yiri arintaasi waana waxyi iyo nubuwa waxa meesha ka bilowda. Waraqa wuxuu kaloo yiri laytanii fiiha jadacan, laytanii akuunu xayan id yukhrijuka qowmuka. wuxuu yiri alla hoogaye, maa noqdo nin dhalinyaro ah ama alla maa noolaado waqtiga qoomkaagu uu ku bixi doono oo xaqan intaad u sheegtid, waxyigan inta u caddaysid, dacwadan inta ugu yeertid, marka ay kula dagaalami doonaan ee ay magaaladaada kaa saari doonaan, abeew maa noolaado. waa ugu fiicnaaleed waqtigaas inaan noolaado u yiri. Waraqa markuu sidaas yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam oo uu ogaaday wixii inay xaq yihiin, waxay inay yihiin, nubuwo ay yihiin, haddana lala dagaalami doono. Waraqoo caalim kitaabii hore ku ahaa uu leeyahay waa lagula dagaalami doonaahe waqtigaas inaan joogo ayaa igu fiicnaa laheed, ayuu wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam, awa mukhrijiyahum, miyay bixi doonaan magaaladayda, miyay iga saari doonaan, miyay ila dagaalamayaan oo xaqa igula dagaalamayaan. Waraqa muxuu ku jawaab? Waraqu wuxuu yiri nacam,
maa jaaءa axadu bimithli maa ji'ta ilaa cuudiya bih ow kama qaal. wuxuu yihi ma jiruu yihi qof la yimid waxa aa la timid oo kale, xaqan aa sheegtoo kale cid sheegtay oo caddaysay oo dadka ugu yartay dacwadan iyo nebinimadkan ma jirto. haddii ay jirtana waa lala dagaalama. qof kasta nebi kasta ee xaqan dadka ugu yeeray waa lala dagaalamo u yiri. marka qasab adigana waa lagula dagaalamaya. Waraqa wuxuu yidhi haddii aan noolaado waqtiga arrintaas aad dadka ugu yeeri doontid oo maaragtay waxyigan aad faafi doontid maaragtay lagula colaytami doono haddii aan gaaro, la ansuruka nasran mu'azaran, gacan xoog la ayaan ku sii doonaa, waan ku garab istaagi doonaa, waan ku taageeri doonaa, micigaagaa noqon doonaa hu yiri. marka laakiin Waraqa ma sii noolaan oo isla waqti yarba waa u dhintay Waraqo. marka laakiin waxaa dhacay inuu caddeeyey oo sheegay inuu nebiga garab istaagi lahaa xaqaas uu wado haddii dadkiisu ka soo horjeestaan. marka qof kastoo muumin ah meeshaas mithaalka iyo tusaalaha aan ka qaadanayno waxa weeye qof kasta oo muumin ahi inuu xaq ciddii wada uu garab istaago, uu gacan siiyo. waa xadiis Bukhaari iyo xadiidka nabigu uu noogu sheegayaho Caaisha ay warinaysa radiallahu canha. maantay imisaa dadkeena haddii xaq la yidhaahdo hala isku garab istaago usoo baxaysa, laakiin haddii la yidhaahdo qabiil hala isku garab istaago, haddii la yidhaahdo yaa ree hebela yaa tol haddii la isku garab istaago, haddii la yidhaahdo imisaa soo baxaysa. shaki kuma jiro haddii yaa ree hebela la yidhaahdo in oo 90% ay dadka garab laga helayo oo qabyaalad lagu dhawaaqo. laakiin haddii la yidhaahdo xaq iyo diin ha la garab istaago, waxaa laga yaaba 100% inaysa soo baxeen. qabyaaladna waa tii nebi maxamed nooga dayriyay calayhi salaatu wasalaam. waa tii nebi maxamed uu fogeeyey ee uu yihi dacuuhaa fainahaa muntina. war iskaga taga, iska dhaafa, ka fogaada qabyaaladda, waa ay uraysaa uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. wax quruna way yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay qabyaaladda, waa qurun yiri. xadiid kale oo saxiixa imaam alxaakim uu kitaabkiisa mustadraga ku warinayo ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa sayid cumar bin khataab usoo galay gurigiisa, usoo garaacay nin guriga usoo garaacay. markuu albaabka usoo garaacay ninkii wuxuu yihi ista'dinuu libni lakhyaar, war ninka akhyaartu dhashay ee dadka fiican ka soo jeeda albaabka ha laga furu yiri, ha loo fasaxo. sayid cumar hadalkii maqlay wuxuu yihi i'danuu lahu, ka furu yiri, hala soo daayo ninka ka furo. waa laga furo albaabkii, waa lasoo fasax, soo gal. markaasuu yihi maxaa tire? markaasuu yihi ista'dinuu libni lakhyaar, ninka akhyaarta iska dhashay oo ragga dhalay ah ha laga furaan iruu yihi. markaasu wuxuu yihi sayid cumar radi allahu canhu, man anta, yaa tahay uu yihi, ninkaan nin cajiib ah baa tahe, akhyaar ninka ay iska dhashay waaba nin fiicana, bal isu kay sheegu yihi. markaasuu yihi ana ibnu fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan, waxaan ahay uu yihi hebel 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 ayuu yihi. rag waa weyn uu tiriyo magacooda caan ah, laakiin xagga khayrka iyo wanaagga aan caan ku ahayn. markii uu tiriyo hebel iyo hebel iyo hebel iska kay dhala uu yihi, uu sayid cumar yihi radi allahu canhu, a anta yuusuf binu yacquub ibni isxaaq ibni ibraahim, ma waxaa tahay uu yihi adigu nebi yuusuf oo aabihiis uu yahay nebi yacquub, oo aabihiis uu yahay nebi isxaaq, oo aabihiis uu yahay nebi ibraahim. 4taas nebi ninka ka soo jeeda miyaa tahay uu yihi.
markaasuu yihi maya, markaasuu yihi daaka bnu lakhyaar, kaas ayaa ah akhyaari dhashay, dad wanaagsan kaasaa ka soo jeeda. wa amaa ant ibnu lashraar, adigu waxaa tahay u yihi kuwii sharta badnaa oo xumaa inan ay dhaleena tahay yiri. inamaa tacudu lii rijaala ahli naar, waxaana ii tirisuu yihi ahlu naarka raggii ka midka ahaa ee naarta iyo lagu shiday waa hore, kuwaas ayaa ii tirisuu yihi mahane akhyaar iyo dad wanaagsan ilaahay agtiisa ammaan ku leh, la ammaanoo la sheegto maba aada tirin yiri. marka macnaha faankaas atafaakhur bilaabaa, atafaakhur bilqabaliya, nabigana waa naga reebay calayhi salaatu wasalaam. meelna laguma gaaro, waa lagu burburaa, waa lagu dib maraa, waa lagu gadaal maraa. intaasoo xadiid nabigu calayhi salaatu wasalaam uu nooga reebay. ilaahay subxaanahu wa tacaalana qur-aankiisa kariimka wuxuu ku sheegay qabiilka waxaa loogu talagalay inay tahay in oo la isku barto, lagu abtirsado, qofka nasabkiisa lagu aqoodo. waa sax, qofku inuu ku abtirsado a loogu talagalay, laakiin inuu u isticmaalo diin ahaan, dagaal, faan, kibir, isla weyni ma jirto taas. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ma ogola. ilaahay muxuu yihi shucuuban wa qabaa'ila aan inka dhignu yihi litacaarafuu, si aad isku garataan. qabiilo ayaa inka dhignay si aad iskugu garataan, iskugu aqoonsataan. maxaa la daba dhigay markaas? si aan loogu faanin ee uusan qofna u dhihin anigaa ree hebelah, anigaa dadkan ka fiican. qof ka fiican ma jiro. qofka kale wuxuu uga fiican yahay waa midda aayadda dhammaadkeeda ilaahay uu ku sheegay. muxuu yihi ilaahay subxaana wa tacaala si aad iskugu garataan markuu yihi, oo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yihi ina akramakum cinda allaahi atqaakum, ilaahay agtiisa kan inkugu karaamada badan, kan inkugu wanaagsan waa kan inkugu cabsida badan. marka qofka kale wuxuu uga fiican yahay haddii uu ka alla ka cabsi badan yahay, ilaahay uu uga cabsi badan yahay, uu ka cabsi og yahay, dhaqankiisa diinad uu wanaagsan yahay, qofka dhankaas uga fiicnaa kara. laakiin dhankan kale qabyaalad laguma kala fiicna gebi ahaan. qabiil ka fiican ma jiro, qof ka fiicanna ma jiro ilaa bitaqwa, cabsida ilaahay ma aha. marka macnaha waxaan intaas ugu darnay maantay waxa ay tahay in la iskugu gargaaro qofka loogu heliyo waa diinta weye. oo waraqana uu leeyahay haddii aan noolahay waqtiga lagula dagaalamayo gacan xoogle ayaan ku sii lahay. waraqa laakiin markii u dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxyigu markuu saa ugu bilowday kabacdi waxyigi waa joogsaday. sababta uu u joogsadana waxay ahayd nabiga maadaama waxyigu uu ku cusbaa, horta naxdintii hore in ay ka go-do oo cabsidii ay ka harto kow, iyo inuu u hiloobo oo cishqiyo mar labaad waxyigii inuu helo oo uu jeclaado. marka muddo ayuu ka joogay waxyigii, 3 sano waa leeraha, 2 sano waa leerahdaa, bilo waa leerahdaa, adigu muddo ayaa waxyigu istaagay. ka bacdi markii waxyigii dib u soo laabtay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam aad ayuu u jeclaa inuu helo, waa u hiloob waxyigii in ilaahay u soo celiyo, oo uu ka murgayo nabiga calayhi salaatu wasalaam xaqi. markaasaa malaku jibriil uu wuxuu lahaa ilaahay rasuulkiisii ayaa tahay xaq ahaaye sabr. markii dambe waxyigu nabiga kusoo bilaabanayay xadiid saxiixu lbukhaariye oo jaabir binu cabdillaahi uu warinayay radi allahu canhu, wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida anigoo socda ayaan dhawaq maqlay yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam. dhawaq ayaan maqlay. dhawaqii markii aan maqlay cirka ayaan fiiriyo yiri. riwaayadaha qaarkood dhinacyadaan fiiriyey, midig iyo bidix iyo hore iyo gadaal waxba ma arkin, kor ayaan fiiriyey. markaas ayaa malagii waxyiga iila yimid aabasamada iyo ardada dhexdooda fadhiyo kursi ku fadhiyo yuri nabiga calayhi salaatu wasalaam. haddaba malag weeye suu kursiga ugu fadhiyay wax dhan waa suuro naloo suureynayo.
suugu fadhiyay midna ma dhihi karti maxaa yeele malagu inta yimaado asoo nin iska soo dhigayo imaanay marka malagii ayaan arkuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas ayaan naxay cabsi ilaa malagu sidii uu ii qabtay oo xoogga igu qabtay ayaan xusiistuu yiri markaan naxayna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri gurigeygii ayaan inta aaday ayaan sidii oo kale inuu yiri zamiluni war halla iduuduubo mara halla ihuwiye naxdintii iyo arrintii cusleed ayaa soo noqotay nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa marka uu tegay maradii la huwiyey ayaa waxyigii dib usoo bilowday oo lala hadlay markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha almudathir qum faandir warabaka fakabir wahiyaabaka fatahir warujza fahjur ilaahay baa la hadlay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha almudathir ninkan isduuduubayow nabi maxamedow calayhi salaatu wasalaam almudathir waa qofka marada isku duuduuba nabigu maradii isku duubay soomaha naxdintii awgeed wuxuu yidhi midkaan isduuduubayow xabiibkaygiiyow qom istaag aa la yidhi isduuduub ma jiro warkiis istaagaa la yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam faandir dadka u digaa la yidhi dacwada gaarsii u dig qofkii ku beeniya u dig oo naar ugu dig nabigu waa bashiir nadiir magacyadiisa ka mid bashiir waa kii bishaareynayey oo qofkii rumeeya janno ugu bishaareynayay nadiirna waa kii digayey oo qofkii beeniye naar ugu digayey digniinta siinayay waxaa la yidhi dig dadka u digaa la yidhi fadhiga ka kac warabbaka fakabir adiga rabbigaagana weyne ilaahay weyne waxaan sanamyaalkan iyo gaaladu ay markaas caabudayeen ka weyne cibaadadiisa ku weyne wa hiyaabaka fatahir dharkaagana dahir nadiifi ka dahir najaaso macnayaal fara badan a culummadu ku fasiraan macnahan hadda annagu waxaan ku soconaynaa dharkaaga dahir dahaarada marka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo daahir ah aa lala sii hadlayaa ujeedkuna waxa weye ummadiisa ayaa la barayaa waa muhim dahaaro dadku maanta dahaarada aad ayay ugu liitaan haddii dahaaro leeraha qofka waxaa iskaga darsan dahaaro iyo nadaafo nadiif qofku waa iska noqon karaa isagoon daahir ahayn maxaa la nadaafaddu wixii on wasaq lagu arag wey laakiin dahaaradu waa wixii oo aan najaaso lagu arag qofku inuu daahir yahay waa in najaaso aysan jirkiisa ku oolin uuna u dahaaro qaataa sidii ilaahay iyo rasuulkiisu amreen ma ahan qofku maanta waxaa laga yaaba dahaarada markii la sameynayo inuu qofku iskaga dahaaro qaato siduu isagu rabo sababtoo a dadkii ma baranayaan sidii loo dahaaro qaado lahaa nabigeenuna baray calayhi salaatu wasalaam ummadda nabigu wuxuu baray si kasta oo loo dahaaro qaato bar xadiid saxiixa oo abu daawuud warinayo ayaa nin yahuudiya wuxuu ku yihi asxaabi callamakum nabiyukum kula shay xata alkhiraa'a nabigiinu wuxuu idin baray uu yihi wax kasta xataa sida loo xaajo guto loo saxaroodu idin bar ya wax kastuu idin baro yihi xataa sida loo xaajoodo markaasuu yihi nacam callamanaa kula shay nabigeenu waana baro yihi wax kasta markaasuu aadaabtii uga sii wara waxyaalaha khatarta maanta ah waxaa ka mid a oo muhim ay tahay dadka in la xusiisiyo dahaarada markii la joogo xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslima ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam laba qabri soo dul maray labadii qabri markuu maray uu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inahumaa la yucadabaan labadan qabri dadka ku jira waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fi kabiir wax weyn oo markii hore ayagu ay u arkeen inay wax weyn yihiinna looma cadaabayo ama wax culusoo markii hore aysa iska ilaali karin looma cadaabayo maxaa loo cadaabayaa ama axaduhumaa fakaana laa yastatiru min albowl riwaayo kale fakaana laa yastabri'u min albowl labadooda midkood kaadida ayuusan iska asturi jirinoo markuu kaadinayo way ku firfirdha jirta ama riwaayada kale kaadida ayuusan iska hubi jirin oo suuligii inta galo oo wixii soo boobsiiyo markii ay hore uga dhamaato kaadidii ordaysay uu astajoonaya markuu astajoodana hadhow ayay kusoo gororeysaa kaadidii maadaama uusa iska hubinoo inay wax damba soo laabanya in kale uusa iska hubin markuu kusoo gorortay oo wax yar ka soo baxeenna dharkiisiya najaasoobaya salaadaan jirin cibaadaan jirin eber cadaabka ilaahi mudanaya
marka waa inaan iska hubino masaladaas. qofku markuu suuliga galo ilaahay ha ka cabsado. qabriga ugu horeeya waxa lagu cadaabo waa inuu iska hubiyaa oo uu istibra waxa leeraa sameeya inaan waxba ka imaanan, waa inuu iska hubiyaa kabacdi uu istajooda. laakiin haddii wixii markuu daadiyo uu hore biyaha ka raacsiiyo ee hadhow uu maaragtay wax ka soo baxaan isagoo najaasahu soconaya ha ogaado. marka taas waa mid waqtigaa nagu yar awgiisan soo gaabinaynaa. waxaa la yihi isdahir nabiga ilaahayow warujza fahjur, qurunkii iyo sanamkii iyo waxa ay caabudayaanna ka haajiro ka fogow. marka waxyigu sidaas ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu soo laabtay. casharkeena dambe ayaan ku dhammaystiri doonaa insha allahu tacaala oo aan halkaas kasii wadi doonaa. intaan ayaan casharkeena kusoo koobaynaa. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.